1860kii qaaradda Afrika waxa uu soo sahan tagay isticmaalkii reer galbeedka oo imbaradoriyadii Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga ka koobnaa. waxa ay kala qaybsadeen qaaradda si gaar ah Soomaaliya ay saameynta ugu badan ku yeelatay. Ingiriiska waxa uu qabsaday maxkamiyadii Soomaalida waqooyi halkaasi uu ka qaatay go'aanka ah in cadan maxkamiyadii uu ku lahaa uu ku taageero. Talyaaniga koonfurta ayuu degay halka Jabuutina Faransiiska uu qaatay. waxaa dhacay loolan aad u ballaaran oo saameyn ku yeeshay taariikhda iyo horumarka Soomaaliya. dagaalkii 77 ayaa lagu tilmaamay qaybtii labaad qarnigii tagay inuu saameyn ku yeeshay Soomaaliya. dad baa u arka dagaalkaasi in go'aan qaldan dowladdii uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre ay ku qaadatay. haddaba daawadayaal barnaamij gaar ah ayaan idinkugu hayaa taariikhda dhinacyo badan taabanaysa oo siyaasadda iyo dagaaladii Soomaaliya ay soo gashay. waxaana marti inoogu ah General Maxamed Nuur Galaal oo ahaa ninkii lahaa fikradda qorshaha dagaal ee 77. waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkan. Siyaad Barre waa ninka darajooyinka ku siiyey la soo shaqaysay ma kala hadasheen arrimaha shakhsiyan dadka aragtida u gudbiya ma ahayd iyadoo loo gudbinayo gurjug ma ahayd muxuu ugu jawaabay aniga dhinaca militariga way ila tasha jiray hay muxuu ka yiri maya hadda sida militariga loo dhisi lahaa iyo wax walba aniga uma aragtay ilaa sabantar xataa shaki galay yiri ninkan waa dara dabaal waa ma aniga maxamed Siyaad ay aaminaya wixii militariga ku saabsan aniga ila tasha jiray Siyaad Barre wixii hawlo meel haddii wax ka dhacaan meel aniga uu idiri jiray haddii dad imtixaan laga qaadayo aniga uu idiri jiray marka waxa soo dhan marka carbiska la sameeyay carbiska ciladaha militarigu soo baxaan carbisyaalka iyo hubka iyo waxyaalaha ruushkuna waxay keeneen hub kala duwan oo qarno cusub yahay oo cusub yahay oo nadaal cusub qarna ayaan ku hore oo maaragtay marka isticmaalkooda iyo taadkooda kala duwan markii la yiraahdo la wada hawlgaliyo la kala tagayaan waxaasan ka soo shaqay jiray markaasaan isagoo u sheegi jiray waxaas dhacay kala hadalnay marka waxa tiraahdo yaa kugu heliyay marka saaxiibtinimadaasi Siyaad Barre asaa ugu dhawaato raggii jaamacadda kala soo baxay raashka yaa kula socda imisa hayde waxay la socday ma walba la afaraan ma anaga dhab galaaska intaan ku wada jirno ku wada laba eber ay haayeen nin baa ficnaa ninkeena hadee markaan anagu xarunta le taliyaha qaybta wuxuu ahaa Baydhabo magaciininka Cabdiraxmaan la yiraahdo waa nin warsangeliga daarooda Cabdiraxmaan Maxamuud Cali la yiraahdo injiis la yiraahdo marka waxaas aniga u qaabilsanaa ciidamada marka takhasuskiisa Cabdiraxmaan Jiis ma general buu ahaa mise si gaar ah isku badanahay way anaga ciidamada ka soo anaga waxaan la soo baray xarbul casaabaadka dagaalka jabhadaha gurilaha ku dhufo ku dhaqaaqda ku dhufo ku dhaqaaq khaliima cilmi badan u leeyahay waxaan la soo baray xataa sida waxaan leeyahay strategic intelligence sirdoonka strategic hay'adahan aan soo baray maaragtay marka wax saddex intii naas u dhigmay saantar iyo kuwan dambe ma ayaan aqoon wariglyadan iyo intelligence kan maaragtay ma ayaan aqoon ayagu naga la naqinay marka taas oo ugu diri jiray isaga laftiisu ma ogeyn ma uusan ogeyn waxyaalaha aan soo bartay waxay ka kooban yihiin ma ku weydiiyay waligii ma weydiin markii ruush yimid nin ruush yimid gaalkii ruushka wax taabto yiri ayuu u urogaaday la yiri waril taas 77 markeedan gali doonaa way 74kii 75kii dalka waxa ka dhacay kacaanka amaantii hore waxa ka dambeysay dhaliil fara badan iyo inkar loo jeediyay nidaamkii ishtiraaki hanti wadaaga
lagu dhawaaqay dad baa loo dilay culamo ay ka mid ahaayeen arrintaas seebay ku timi maxay galabsadeen culamadan maxaa loo ها قانا وده iyadoo wala togta leeyahan ark laakiin gardaray ahayd adigo sura quraanka uu bedelay ayad quraan uu bedelay xisbiga oo waxa la dhahay xeerka xisbiga xeerka qoyska xeerkaas qoyska koox muujinaya la hoos orday oo naago iyo niman iyo waxyaalahaas marka odayga talada ka hadlawday marka halkaas ku jirtay suuratul nisaa inuu bedelay hada wadaadadana intaas ka qaybiyay adduunka dhan ka qaybiyay waa qarajaa saameyn ankay ah ku yeelatay xiriirkii Soomaaliya ilaa gobolka iyo kan carabta oo leeyahay waliba dawladda boqortooyada Suudi Arabiya aad bay uga caroodeen carabta iyo masaaridana kulli waa ka caroodeen qala ka caroodeen ma jirta inta loo in la siyaasad baralay warheed ka leexda nidaamkan anti wadaagga oo yaday ma carabtaan waa suuroodaan wax ku tirtiray laakiin masala ninka min la taliya ma ahayn kalama yeelay way sida muuqata arrimaha militariga ayaa aad uga warhaysa iyaga ayana weydiimaha inta dhiman ka weydiin doonaa siyad bara markuu talada qabsaday waxyaabihii ku dhawday wax ka mid ah gobolkii Ogaadeniya oo dalbadu yiri la soo celiyo dagaalka sal lagu qaatay dagaalka 77kii ee taariikhdan galay oo waliba gobolka leeyahay waa dagaalkii ugu saameynta badnaa qarnigaas seebu ku yimid general kana wuxuu ku yimid dagaalkaas horta hal abuurkiisa Soomaalidu ma lahayn midowga Soofiyeedka lahaa Soofiyeedka ayaa waxa ku dhacday markii laga xiray saldhigyadii uu ku lahaa Masar oo laga saaray Masar Anwar Saadaad uu diray ayaa maaragtay waxa ku dhacday balanskii awoodaha ayaa dheeliyo xagga Mareykanka u dheeliyay marka waxay dabceen inay ka argoostaan Mareykanka wayahay su'aalaha inta ugu badan militariga ka weydiin doona adigana dabcan sida muuqata arrimaha militariga aad ugu takhasustay una xiiseynaysa dagaalkii 77kii taariikhda galay Itoobiya iyo Soomaaliya dhulku qotomay waxa qaatay go'aankaasi dawladda uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre waliba markii xukunku uu qabsaday waxyaabihii ku dhawaaqay midnimadii shanta Soomaaliya dagaalkaasi dejintiisa iyo go'aankiisa ayaa iska lahaa general horta arrinta shanta Soomaaliyeed wala walba waa sheegi jirtay hata dawladii rayidka ah waa sheegi jirtay dastuur kastana waa ku qoraya oo rahan kan midkan hadda qoonkan ay sameeyeen iyo laakiin wixii ka horeeyay dhaqo ku qorna marka ma ahayn wax u gaar ah Maxamed Siyaad laakiin waxa gaar ah oo xusid mudan dagaalkaas dadku waxay moodaan in Soomaalidu ay hal abuurkiisa lahayd ama initiative-kiisa ay lahayd ma lahayn dagaalkaas hal abuurkiisa waxa lahaa iyo ujeedadiisa iyo midowgiisa oo itiba lahaa sababtuna waxa weeye markii laga saaray Masar oo saldhigyadii Masar laga xiray laguna wareejiyay Mareykan ayuu aad iyo aad ugu carooday marka wuxuu leeyahay balanskii dawladaha waaweyn oo maaragtay miisaankii ayaa lumay oo wuxuu u leexday in favor of Mareykanka halkaas uu dheeliyay marka ma ogolaan karno yacni sheekadaas waxaa noo keenay maalin anoo iska jooga xafiiska ayaa warqad yar ay keen oo casuumada oo ka timid safaaradda Ruushka midowga Soomaaliya leeyahay caawa halka saac lumay 6 barka safaaradda casuumad cashay sharaf bareego emow waaya waxaan ku casuumay waa saraakiil Ruushiyaan
maya waa safiirkii marka saacaddii markay 3 daqiiqo ka dhimantaan meeshii soo galay waxaan u imid General Sabantar oo fadhiya iyo 3 ruushoo taagtaagan laba waan aqeeno midna safiirkii oo ahaa midna wuxuu ahaa ninkii madaxda u ahaa qowaradii militariga ee ruushka noo joogtay ninka saddexaad wuxuu ahaa nin admiraal ah oo labisan oo aan dib ka ogaanayo inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada badda Sooviyeedka ahna xubin Politburo-ga garanaysaa yacni meesha laga xukumo midowga Sooviyeedka admiraalkaasaa yimid Sergey Grachkov la dhahayay Sergey Grachkov markaan soo galay ayaa safiirkii yiri ninkaanu gaashaanle sare Maxamed Nuur Galal waa guddoomiyaha waaxda wardoonka hoggaanka sahanka la yiraahdo hoggaanka sahanka marka intuu tilaabo hore u soo qaaday ayuu yiri war waa shakhsiyadda ugu xiisaha badan ee xoogga dalka hadalkaas anigu waa dhibsaday xajal Sabantar fadhiya Sabantar hadduu maqlana siyaad barro maqlay oo kale weey inuu hore uga geynaya marka siyaad barrana in nin la sheego asagaan ahayn ma ogola ma jecla waxa kaloo ayadana aniga lafteeda iga hadalkaas dhibaatay waxa kaloo dhibaatay aanu arkay Sabantar waa joogaa hadda waa wasiirka gaashaandhig waxaa jira ninkii abbaanduulaha oo ahaa nin generaal ah sarreegaas Maxamed Cabdalla Faadil oo warihii sare kacaanka ka mid ah oo loo yeerin aniga waxaa aniga Sabantar isku kaayo xiray waa maxay boodadaas maxaa ninka loo keenay ninka ana laas la yaaban su'aalaas marka la isweydiiyay mooyaan qof ma la wadaagay ana isweydiinay shaki bay kugu abuurtay marka ninkii hadal bilaabay waa iska fariistay ninkii waa hadal bilaabay wuxuu yiri haddaan nahay bahdii hanti wadaag waa qasaarnay dhibaataan haysa haddii dagaal dhaco dagaal baana lagu soo qaadayaa waana kaga adkaanaya haddii dagaal dhaco haddii maanta adinka idinku yimaadaan idinma soo gurman karno dariiqii oo dhan la ka xirtay walbaana la ka xirtay waxaa soo galay tababar weyn oo ciidamada midowga Sooviyeedka oo dhan galnay waxaa noo soo baxday inaan nahay losers haddii dagaal waxba ku fadhin ayaa noo soo baxday marka taas wax la dhowran kara maaha waa inaanu ka hortagnaa see looga hortagaya wuxuu yiri Maraykanka ayaan ka saaraynaa khaliijka iyo Gulf Persian Gulf iyo khaliijka waa ka saaraynaa Maraykanka xoogan uga saaray waayahay Allahu marka wuxuu sheegay inta ciidan oo galaysa dawladaha galaya wuxuu sheegay waxa ka mid ah dawladahaas Ciraaq oo ku duuli doonta Kuwait qabsan doonta 74 aan ogaanaa dagaalkan bilowga 900 dhacay 1990kii 74kii aad ka wareysay ayaan ogaanay waayahay aan ka dhaxgalay ee generaale marka uu ku leeyahay ma idin soo gurman karno balaaya aan uga dhacaysa saas wax meedin kugu muuqanaya Soomaaliyeedna in qatar jirto maya ayaa jirto markii meeshaas laga saaray strategic ahaan waa dareemayay anigu shakhsiyan
inta laga shira lagama hadlin laakiin anigu shakhsiyan waxaan ogaa in meeshaas ay dhibaato weyn ka gaartay midowgii Soomaaliyeed waan ogaa waasa way marka wuxuu yiri Ciraaq saasaa la yeelayaa Kuwait kow boqorka xunka oo ergeyna haye Sacuudiga 73 meelood oo halbowle ah ayaan hal mar qarxinaynaa dadkii qarxi lahaa iyo qalabka wax lagu qarxi lahaana haddaba waa yaalliin meesha maalinta Ciraaq ay bilaabayso ayaa iyadana la qarxinayaa wuxuu yiri South Yemen koonfurta Yemen waxay ku duulaysaa Oman saldaanka xuna meesha jooga meeshaan ka eryeynaa tan lagu soo jeesta uu yiri markaa adinku ma lahaydeen dhul baa naga maqan haddaba doonta dhulkiinni waxaad rabtiinna ay weydiiya hub iyo wax walba haye awa jabhadii u dhihi awa jabhadii Soomaali galbeed dhihi jiray shalay meelay ku kala fiirsantahay markaasuu hadda la isugu yeero hala tababaro hala hubeeyo hala habeeyo qarashkeedoo dhan anaa bixinayo hubkeeda iyo waxaas ninkan ha loo dhigo waa aniga يعني نوصل تشري مركي بولو روش كشري عمل أنا أكاديمي وقت نكنا لو نقول wax aqoon hore oo kala dhaxaysan ma jiraan goobta yar teetalkaaga markii loo sheego go'aansaday waligaa maya wuxuu ogaa waxaan soo bartay in raashad ka diiwaan gashanta ogaa way kuwan ma ogaa laakiin asuu ogaa way markuu leeyahay jawaad halninka loo dhiibo wuxuu ogyahay inaan hawshaa soo bartay okay sii waday yani wuxuu yiri wixii hub aad qabtaan jabadaas iyo tababarkeed wuxuu yiri ciidankiina marka waa la dagaal gelinayaa markii jabaduhu hawshooda dhameeyaan wixii aad u baahantiin oo hub ah cusubna annagana weydiiye soo qora halayka waxa mar dhow imaanaya nin admiraalaho oo operatorka ah operationnada dhan ninka xisab howlgalka qaabilsan ayaa idin imaanaya intuu soo imaanaya si diyaariya baahidiinu waxay too dhan kuwa labadii inta ku jirto weeri la diyaariya Soomaalida waxay rabaan waa yaalay subaxdiina hadee maxay soo intuu u tago warqadii u dhigo barashada soo qoray oo waxaas ku leeyahay adinku maxaa qabanaysaan aniga wuxuu yiri anagu laba warxaad baa qabanayna markaas Afghanistan uu joogay ma ogtahay Afghanistan ka soo degaynaa waxaan imaanaynaa Iran annaga xaggan ka soo kicinaynaa soldaanka shahdi beersi meeshaan ka tuuraynaa jabhada dhihi jiray mujaahidiin qalaq mucaaradka ah oo markaas Basra joogta Ciraaq oo Iran ku kacsan Iran ku kuwaasaan xukunka u dhiibaynaa wuxuu yiri meeshaan qorigan la yiraahdo Hormuz soo taqaan ya jamalka Hormuz istiraatiijiga waxaan geynaynaa oo yiri 4 barkab oo cruiserka la yiraahdo waaweyn oo nuclear powered ah ayaan geynaynaa labana xagga u jeesanaysaa meesha wax maraya malaha la leeyahay dagaal farax loo gubtay ka dhigaya hadii lagu biyo keenana kuruuga waxaan uga qaadaynaa samariin
markaan kuruga ka saarana meeshan ku qarxinaynaa iyaga nuclearka maraakiibta meeshan ku qarxinaynaa 10 sano wax maraya male marka dhammaan macluumaadkaas dhanka militariga ah adinku idinku dhiiri gelinayaa si dagaalka u gashaan waayo waaba go'aankooda inuu sidaas u galayo uu kuu sheegay balaankii dhan uu sheegaya yani inaadnaan kaligiin ahayn ogaada oo saas u hawlgalayna waaya inta kale wuxuu leeyahay wax walba xaggaas alarmanka ayagana ka galnay xaggaas ayagana ka galnay meel walba laakiin ficilkan ah aan qaliji ka saarno nimanka dadkaas ka kooban waa Ciraaq waa ayaga horta ayaga waa Ciraaq waa annaga Saudiya madaqadan inay hawshaas furiyaan دوايان صلاتي نو ضافي markuu maxamed waraada u geeyay warqadayaan qoranay annaguna iriiday kii ay yimid aad bareer ku sheegay wixii detail u sii sheegay waa loo dhiibay week ka bacdi baa soo bilowday week ka bacdi hubkii raashka ee aad qorateen ragga qorad ka mid ahayd ragga adiga ahaynba kaliya ma kaliya ma nimanka ruushka la qoray waad samatar geesaa eegaysay siyaad barnana aad uga shakisanayd siyaad barna ma la wadaagtay kulanka aad la qaadatay iyo waxyaabaad ka wada hadasheen su'aal ma kaa weydiiyey haye muxuu ku yidhi yar wuxuu yidhi hadda jabhadii waa nimankii waa ku soo magacaabeen buu yidhi waxaan malaynayay ma ogta nimankii waa ku soo magacaabeen buu yidhi jabhadaa loo dhiibay yidhaahdeen annaguna waa yeelnay laakiin maxay kuugu dhiibeen uu yidhi waay markaasna yidhi kolleyba wixii aan soo bartay ayuu garanayaa ninkuu la socdaa oo maxay ahaayeen arrintaana ka mid ahayd oo maxaa nala kugu sheegi waayo aniga maba ogeyn isagu maba ogaba kulanka dhanba maba oga mooye inaan waxaan soo bartay aniga ma oga waaya maxaad iigu sheegi weysu maxaan kuu sheegay wasiirkaaga inuu kuu sheegay nin walba ma kuu sheegaya ninkan la rabo inuu kuu soo aruuriyo wax shaqadiisa nin bay ahayd asaa laga raba inuu guto waayahay isagana waa kurkursaday shibuu iska yiri marka hadda halkaasaan hawshii ka galay waaya markaad hubka hesheen waxaad hubayseen jabhaddii Soomaali galbeed jabhaddii laba jabhadood waana hubayna haye wixii aan Soomaali ahayn waa soo yaaceen kulli markay maqleen Soomaali waa u bixinayso Oromo dhan soo yaacay haye Soomaali abu ragil oran jiray kuwaas qaab baan ula macaamil wixii Soomaaliyana qaab kale kuwa hore waxaan ula macaamilnay week baan wax tusnay waryaan siinay guryihiina ku noqdaan niri ama xaalada aad aragtaan jafa booliiskooda laaya qabqablayaalka dhiisiyaalka dila nimankan la yidhaahdo landlords kuwa beeraha fawdaanistaha oo beeraha xoogay oo ah boqortooyada iyo qola la dhihi jiray reer habtawalda prime minister agliiru habtawalda 40 sano nin ahaa prime minister oo boqor kala noqday isagana beeraha iyo churchka meeshaan kiisada saddexdaas dhulka leh inta kaloo dhan waa doonfuul saddexdaba iyo wixii cirif lale iyo waxaas oo dhan laayaan waayahay hubka Soomaaliya siisay dawladda nagaaseen wixii hubkii hore oo Talyaaniga ka nooga haray wixii Ingiriiska aan ka keenay waxaan siinaa hore ayaga hubkan automaticada ma anfacayo qararacda geedkan kaloo ujeedkana waxa weeyaan dagaalka Ethiopia inay ku garab siiyaan awoodda Ethiopia boqortooyada inay wiiqaan oo dhulkan Oromada oo dhan ay ka saaraan civil service oo dhan waxa maamul dawladeed oo dhan maamul security police oo dhan maamul dhaqaale oo dhan inay baabi'iyaan ku tuntaan baana yeeleen koone ilaa koone
shishay u eriyaan shishay waaye jabhad taas bay ahayd qola taasay ahayd waaye qolada kale waa soomaalida hadda iyaga ayaa aad baan u tababarnay wax badan oo saasa ma ahayne adiga ciidan oo ilaa iyo 4,000 oo nina ayaanu tababarnay nus waxaan ku tababarnay meel Qorilow la yiraahdo halkaasaan ayaan kaam ka samaynay xamar 70 kilomitir u jirta dhinacan waqooyiga Qorilow baa la yiraahdo halkaasaan garoon ka sameeyey isugu geeyey 1,500 oo nin meelaha hal sano oo kaamil ah ayaa tababar ku socday waaye qola kalena intaasoo kalena waxaan ku tababarnay meel la yiraahdo Agabar oo Hargeysa 50 kilomitir waqooyi ka xiga ayaan ku xiraynay anada 1,500 oo kale hal sano isku maray isku barnaamij waqtiga markuu dhamaadana waa hawlgelinay hubkii soo sheegayay hadba waxa imaanaya markab haye nin generaal ah la soo ka soo degaya nin generaal oo dawlad kale ah ayaa la socda dad kale ma yaqaan oo generaal galaal oo leeyahay warway kana hubkan yaa ku xageed ka keentay shaqo mari asaga soo diray dawladda kale mar waa Bulgaria oo mar waa waashana Hungary oo mar waa Poland oo mar boqol askari midowga Soviet kuwii Warsaw Pact ku jiray waay marka waa diyaariseen jabhadii waa diyaarin kuwa waxaad ku diyaariseen waqooyi Itoobiya Oromada waqooyi kuwaad ku diyaariseen goorma lagu dhawaaqay barbilowga dagaalka adiga waxaan waa 76 waxa diyaar garowga u soconay markay galayaan 75 xiriirtii aan bilowna magarat 74 aakhirkeedu markuu noo imaanaya xilli salaasa wali joogay oo meesha haysta dhulkan dhinacan Itoobiya meel ay ka cabaadayeen ruushku oo waxa jirtay Eritrea ku taala taasa baaba'aysay dhaayeen dad hadii Itoobiya la kala tuuro marka dagaalka waa la galay ciidamadii xabashada oo dhulkan Soomaali galbeed joogay baadiyo dhan laga soo jafay tuulooyinka laga soo jafay ceelashiya laga soo jafay magaalooyinka degmooyinka dhan laga soo jafay waxa la soo keenay goday iyo qabri dahre iyo dhagax buur iyo jigjiga marka istiraatiijiyada dagaal ee wajiyadaasi dhowrka ah dhammaantood iyo tababarkii jabhadaha waxa dhanaba iska lahaa oo General Maxamed Galala ana waday ana waday marka sida uu kala magacaawday kumaandayaasha dagaalka maya anagu nin sargaalaan ku dareynay marka la dirayo ninkaas waxa weeye maaragtay waa maamul guud laakiin waxay leeyihiin taliyayaal leeyihiin horin taliyayaal isla ayaga dadkooda ayay leeyihiin aad bay u tababarnaayeen waayo marka awal baada markii la gelin dagaalka la bilaabay jabhada ayaan reebtay ogaada jabhaduhu magaalooyinka waaweyn kama saari karaan cadawga markay ku soo aruuraan oo la soo aruuriyo oo miyiga dhan laga soo saaro oo magaalooyinka waaweyn yimaadaan ayagu kama saari karaan waxa la raacay ciidanka runta oo riglaha inuu galo oo ka saaro waa lagu heshiiyey waayo markii ciidankii jabhadii ay hawshooda guteen marka inta hawshaas socotay waa marka Fidel Castro ay imaanayaan waa ninkii Cuba madaxda ka ahaa kacdoonkii Cuba hogaaminaya ninka noo yimi bardhawo geeriyooday kafoonile wasakh laba goor ay cadaabeen mad ilaahay baa cadaabi marna waa gubeen
dambastiisana waxaa la geeyey Santiago nacalat allah oo madnaa in la gubo marka Fidel Castro waa idin yimid noo yimid isagoo garbaha ay u saareen madaxa ku sita kacaanka Ethiopia kacaankii Ethiopia ayuu noogu yimid de waa balac waxaan iyo maya midna ahayn ayaa lagula dhaqmi jiray asaga wuxuu idin sheegay maxaa ka mid ahaa Fidel Castro ka joojiya maaragtay waa ogyahay inaan dagaal ku wadno waa ogyahay inaan dagaal ku wadno waa ogyahay oo jabhadii galeen marka wuxuu leeyahay ka joojiya dagaalka la joojiyo dagaalka laga joojiyo hala badbaadiyo kacaanka Ethiopia waa kacaan hanti wadaaga waa kacaan saana waa laydin heshiisiinayaa loo walba waxay xaq u leedahay helaysaa war waxaasoo annagu Fidel Castro isaga suu rabaa waatii midowga Soviet xogayaha xisbigiisa ugu weyn oo idin sii ogolaanshaha hub idin la dejiyay ayagii miyuusan carruurtii Soviet-ka ahayn Fidel Castro maya waa ahaaye Soviet-kii barnaamijka ma bedelan halkaa bay wax iska bedeleen kee Mengistu markuu meesha qabsaday markii hore wuxuu isku dayay inuu iskaashi la yeesho Shiinaha iyo dadka Oromada la yiraahdo labadaasoo ka dhigtay garbo Oromada hadda waxaa jiray mid la yiraahdo xisbi waxaa jiray oo shuuci ah oo Maysoon la yiraahdo oo Oromadu leedahay iyo oo madaxka ayaa mid la yiraahdo Professor Haile Fida marka ninkaas oo macallin u noqday ninkaasna wuxuu ahaa maawiistu ahaa professor maawiista laga dhigay marka wasa hadda markaasna Shiina iyo Ruush la isma tuso isma arki karaan ma waska markaas carasi qaadeen Mengistu markii uu cabaar waday ayuu dareemay meesha khayr uusan ka soo socdo inaan Shiinuhu miisaanka Ruushka oo kale uusan lahayn oo nin qasaaraya dawalkaas inuu waqti ku luminayo uu ku habsaamayo garta waaya markaasuu Ruush warsaday inuu u tago loo ogolaaday waa tegey siyaasadii u bedelay waxa rabtaan diyaar baan u ah yaa dhahaya Mengistu raashku ku leeyahay waaya barashne adinkana barashef ballan idinka qaaday haye maxaa rabtaa hale nimankana leega celiyo Soomaaliya la yiraahdo leega celiyo burcdo maaragtay ama haraan oo ugu kacsantay oo waan isaga celiyo hal isaga laakiin nimankana leega celiyo labada waa laga yeelay waaya markaas marka Fidel Castro ay soo baxay ayagii waa nagula soo dhici waayeen dagaalka joojiya ilaa mar hore idin yiraahdeen ayagana galiyay hore u socda haye marka qashinkaas inagu soo direen waxay sameeyeen awal waxaanu Kuubana noo joogay meesha koox Kuubana joogto guul wadayaasha wax bari jirtay anay ugu xirnaayeen kuwa Kuubaanka tiradooda meeqa dhamaayeen ma qasoo dameeyay waxay ahaayeen oo way dhisi jireen guul wadayaashaas maaragtay iskuul guul wadayaasha la yiraahdo afgooya ku yaal aragtay in kala labada jaamacadood u dhaxeeya iskuulkaas ay dhiseen halkaasaan ku tababari jirnay guul wadayaasha markii hore saasaan isula soconay markii arrintii ay soo noqotay ayaa iyagii la soo adeegsaday Ruushka soo qaatay iyo bahalka Fidelba inay annaga laba kooxood ay soo adeegsadeen rag badan oo diplomats siyaasiyiin oo yar kaadar xisbi Bulgaariya laga keenay fartameeye xaruntii xisbiga la yiri ka howlgala oo ka dhaadhiciya xisbiga inta wadaag
in dagaalka la joojiyo dagaalka laga joojiyo waay la badbaadiyo kacaankaas dabadeedna la heshiisiyo Soomaaliya iyo laguna heshiisiyo federation wax noocaas annagana kuubaanka yaa la yidhi xarunta dhexgala saameyn ku yeesha qorshahan la dejiyo dagaalka Soomaalida ay qorsheynayso ka joojiya maya iska naga joojiya nimanka hal yaanaan meesha waa isbedel baa ka yimid isbedelkaas yaan la baqteenin wuxuu u egyahay isbedel inta wadaaga oo socda annagana waxaasay noola yimaadeen kuubaanka kuwiina xisbigiina saasaa loo galay labadiiba waa lagu gacan saar nagala tagale marka kuubaanka waxay yidhaahdeen dagaalka la joojiyo xafiisyadii xisbigaanta wadaaga kacaankana way ku jiraan qoladii ka socotay Bulgaria Fidel Castro iyo asxaabtiisa intuba waxay diidan yihiin oo leeyihiin dagaalkan munaasab kuma ahan kacdoonkii xabashida hala badbaadiyo waayahay general aan ku weydiiyey ana hore u sii wadanayna sheekada wacyiga siyaasadda waa uu sareeyay wax ku soo bartay dalka Ruushka oo militariga ayaa ahayd xilligaasi go'aanka kuubaanka sax ma kula muuqday in dagaalka la galay marra saayla ma muuqan markii anagu ma joogan waqtigaas meel aan ka noqon karnaba meel aan galnay oo ina geliyeen aan galnay oo xabashadana la soo saaray oo 4 magaalo 5 magaalo ay ku hareen kaliyan taagana magaalaas oo haraatida u dambeeyay in lagu dhifto kaliya oo loo baahan yahay haddana waxaas ka dib uga noqonana annaga bana la ku kacaya oo kuwaas hadii inta dib u soo noqdaan nagu kacaan wareeri waa leeyahay way hore u soo markaa siyad bar go'aan ka soo qaateen dagaalka la galo siyad u maaraysan ragidin ku dhex jiray kuubaanka enigma noqotay enigma waxaa la yidhi aniga markii dagaalkii maaragtay jabadii dhaay waa u tagay maxaa soo cayray jabadii hawshoodii waa dhameen yaad u tagtay maxaa siyaad haye jabadii hawshoodii waa dhamaysteen wixii kaloo lagu dhaqaaqi lahaa laga rabaa waayahay oo maxaa weeye waa ciidanka maxaa kale soo saas baa ballanku maayo haye waa kana samantar u yeero samantar adigu u yeera xaggan iska samantar loo yeero waxa la yidhi ciidankii diyaari oo qorshihii diyaari ugu howlgeli lahaa samantar waagaa ku caddaaday samantarna Soomaalidu ma taqaanee nin shaqaba maaha waa hal caajislow oo maarag baalaha madow kugu socda waa iska fay waa hal caajislow oo mashaqaysta inuu sheekeeyo kaliya raaco jecel waayo ninka ugu sareeya darajada militariga Soomaaliga miyuusan ahayn waa dawaaha waay darajada tan waxaa qabtay rafiisu ku arkay maxamed siyaad waayahay marka waxa la yiri daji qorshe bas aniga weeyay wargala ruux ku dhaamahay baasha soo sameeyo ma sameynaya hooyadeeda ka ani asaguna waa isqaniinsan siyad bara samatarka isnaa wada xun oo iga qabaa ma sameynaya maxaa sameynaya xarunta dhexe ha samayso oo wasaaradda gaashaandhig ha samayso hogaamada ha sameeyo waaya hogaamadan hadee ma loo nimanka ruushka farfadhay waa ogtahay see la yeelaha la yiri waxaa le waa in hal nin la helaa hal nin oo hawshaan gala oo dee waxna fahamsan waxna si fiican u yaqaana waxa kalena wuxuun ka yaqaana hal la helo hal la raado aniga u noqday markaasuu yiri hadda samee hawsha qorshaha dagaal daji jabhadii maadaama hubkii tababarka ay haystaan daji qorshaha ma dajinayo tii hore aan ku dhintay jabhadahaas aan ku wareeray mid dambana wareer dambana ma gelayo xashada tuutu diiday oo yiri wuu diiday fayna ay yeeray waa maxaa ku diidaysaa warbataan baashaas ma samayn karo waa maskaxdii baa iga gubatay jabaduna waa kharaab waa dhib meera
cabaar waaniyo cabaar wala hadlayo maxay ku dambaysay talo samee weer markii dambe waa iska yeelay waayahay go-aankii ayaad qaadatay go-aankaa iyadoo kuubaankii iyo idinla joogaan Waa nagu dhex jira, idinku dhex jira horena la idin yiri dagaalka waa inaad ka joogtaa Ha. idinkana aad tidhaahdeen waa inaan galna dagaalkaas qaadaa talo maxaad samaysay habeenkaa maxaa samayn lahayn hadda waa meel aana haddeer garanayn meel ah ha horta markii hore waxaan dacwaynaya inuu cawadii shaqeeyo xafiiska ku shaqeeyo maalintii inaan shaqada imaado iska dhigo nin markaasuu mida ila fadhiya markaasuu yiri tabaarash galaal xalay iyo habeen hore iyo habeenka hore nalka xafiiskaaga waa shidaya yaa ku lahaya sidaa kii ila joogi jiray xafiiska ila fadhiya oo ajnabiga ah ruush waa ruushyaanka ahaa ha haye maxaa jiro xalay iyo habeen hore iyo ma aadan jiifan habeen hore waa u shidnaayo nalka maxaa dhahay markaasaa war maalintaan inta shidaan ka tagaa cid kuma shaqaysa habeenkii waalate laakiin gartay inay basaasayaan haye bes waa fahno ruuxa saasaa jirtay meel duuraho halkaa meel ay tahay hadda aanan garanayn ayaa xafiis xun la iiga sameeyey iyo raadiyo iyo halkaasaan joogo 3 bilood qoraal maxaad qabanaysa saddexda qoraal 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 qoraal